بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وسلم أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي حلول عقدة من لساني يفقه idaawanaya idhegaysanayo. assalaamu calaykum. waxaan walaa halkan ugu bishaaraynayaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa in iyo codsiyo fara badan oo waddanka maraykanka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo gudaha Soomaaliya in dhowr kitaab codsi ah ay jireen. kitaabka tafsiirka wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah. marka waxaan isku dayey dhowrkaas soo jeediyey laba kitaab inaan ka dhigo oo maalinta arbacada aan ka dhigo maalinta tafsiirka qur'aanka oo muddo kooban oo ah nus saac 5 daqiiqo. saacadda farsamo darteeda iyo wax isku hagaajin waxay la gaartay 3, laakiin noqdo hadduu ilaahay yiraahdo 2:15 hadduu ilaahay yiraahdo, si reer muqdisho oo 10:15 ah Soomaali weyn meel kasta ay ka joogaan, Garowe, Hargeysa, Baydhabo iyo Dhuusamareeb inay ka wada faa'iidaystaan. ka faa'iidaystaan dadka jooga Yurubna inay ka faa'iidaystaan. haddii waqtiga dhibaato ka yimaado oo muraajacan doona hadduu ilaahay yiraahdo. marka hore wax la barto waxaa uga qiimo badan oo number 1 u ah islaamka waa fahamka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala. kitaabka ilaahay waa kalaamullah badan aan haysano. culamada qaarkood waxay dhamaan nimco la dayacay gurigeenu ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa masaajidaha waxa ugu subxaana wa tacaala oo meel walba yaala. kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala akhrintiisa oo keliya xaraf kasto xadiiska suu sheegayo waxaad ka helaysaa ajir iyo thawaab oo ugu yar ama 10 xasanaad ama wax ka badan. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa aqulu alif laam miim xaraf, aniga alif laam miim xaraf ma dhahayo dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. oo asal ahaan xuruuf ah tiga aan gaarno albaqara ama suuradaha alif laam miim ku bilowdaan ka sheekayn doono, laakiin wuxuu dhahay alifun xaraf wa miimun xaraf, mid walbana xasanaad gooni qofku uu helayaa. marka quraanka kariimka ah darajadiisa iyo fadligiisa heerkaas u gaarsiisan yahay. kitaabka hoos laakiin waxaan go'aansaday suuratul faatixa inaan akhriyo tafsiirkiisa maanta. marka sheer gareeya tafsiirkan qur'aanka oo wixii maanta ka bilowdo arbaca walbaan akhrin doono hadduu ilaahay yiraahdo. wuxuu helaa calayhi wasalaam tilmaamay qofkii qof kale khayr u tilmaama, qofkaas khayrku u tilmaamay wuxuu ajir helayo in la mid ah waxaa helaya kii khayrka yey. marka haddaa hal qof aad gaarsiiso oo aad la shargarayso waxaad helaysaa qofkaas hadduu 1 helo 1 oo ziyaadaad helaysaa. 2 qof haddaa la shargarayso 2 qof wuxuu helay. marka aakhiran waxaa badbaadaya oo keliya qofka miisaankiisu. malqaarica wamaa adraaka malqaarica waxaa ku xiga markaasi yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi almabthuuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما موازينه
إلهي هل كان حكاها هذا ضدك ميزان كود وعصلاضي محول عصلاضي حلوت لقلي فهو في عيشة راضية جنة وحلو قلي كراء ميزان كاغو حسنات كبوح سيغنا نارتا وأما من خفت موازينه قفك ميزان النقضي وجد حكوية الحسنات وحكو بضن دبية وأما من خفت موازينه فهو وأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية تنوع عكسي وأما هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ويديس waxa hooyo u noqonayso ana dhabta waxa gelinayso iyadoo koon macnaheedu waa intaas marka halkan haduu ilaahay yiraahdo waxaan ka bilaabayaa tafsiir quraanka kariimka ah oo safar dheer ah safarkaasi in ilaahay subxaanahu wa ta'ala nool lagu gaarsiiyo saan maanta u bilownay inuu ilaahay noo tusiyo annagoo nool ilaahan weydiisanayaa ilaahan idin weydiinaya dadka la bilaabanaya tafsiir إلهي سبحانه وتعالى إن وكرميه أنا وإلهي سبحانه وتعالى أدونك النعفيي أنا قبل باديي إيه وما أنت يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى هرتي سكوى ما لقوني ألا فري وإلهي سبحانه وتعالى حديث كي رسولك عليه السلام عنك أها وإلهي ويدينا يو aaway kuwa darteeda isku jeclaaday oo darteeda isku xiriiriyay kuwaas ilaahay uu nagu daro kitaabkan tafsiirka fahamkiisana isku xiriirino oo markaas ilaahay halkiis markaas malaa'iktii qaadaysa ila janna ilaahu taasna tusi safarkan ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo fudeeyay fahamka quraanka kariimka ilaahay subxaanka xikmado badan iyo asraar fara badan ayaa ka buuxda waa qodqodayna anaha tafsiirka hadaad aragta ka dhigay meesha kore fahamka quraanka in la fahmo u baahan yahay subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karima fi hadhihi suwar ama suurooyinkaasi boqol iyo afar iyo toban suuradood ilaahay subhanahu wa ta'ala دوينك إلهي إن لفهمه أي تفسيرك وحسهلا معها أنا علماء تفاسيرته ما ركتي تفاسير تضان صواب قين دونه وحن كسو أورين كرا أو حكمة كسو أورين دونه عندنا كتب قارقة وتفاسيرنا حوق أي أنصاري دونه إنه وحكرا صواب حسيد تفسير ابن كثير وكم إذا تفاسير توقع عاصا مركا سورة الفاتحة مركان كود وأن دميو سورة كتاب خاص أيان كسود الدونا مركا سورة الناس هي كحين هدو الله راضى إلا كتاب إلهي أن دمينا سهلو دمستر كيسة اللهم آمين إله كتاب كاسي وحي الحكمة وكو قرصان إله النتوسي وحي أسرار وكو قرصان إله النتوسي علماء waxay dhahaan tafasiirta shuyuukh fara badan tafsiirka quraanka ka soo dhigaysa kuwa aan Soomaali ahaynba intaan diinta baranay laga bilaabo 13 jirkayga daada hadda 57 aan soo gaaray ta'ala weydiisanaya ilaahi subhanahu wa ta'ala wax ala wixii tafasiir ah oo culumadii macallimiinteeda ahaa shuyuukhdeeda ahaa waan ka soo bartay halkan aan ku diyaariyay si nida iyo asraarta iyo wixii xikama quraanka aan la soo baxno kitaabka quraanka kariimka ah suurada lagu bilaabo waa suurada ugu horeyso kitaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala waa suurada lagu furfurtay suuradan magacyo badan ay leedahay magacyadooda qaaran sheegaya culimada magacyadooda 10 way dhaafsiiyeen iyadoo kooban magacyada waxaa kamid ah al-Fatiha magacyada suurada waxaa kamid ah alxamdulilah magacyada suurada waxaa kamid ah as-salah waxa as-salah loogu magacaabay xadiiskii rasuulka calaih salaam u dhahayay ilaahi subxaanahu wa ta'ala markuu waa xadiis cajiib
إلهي صلاة وحقوق قيبي بين وبين عبده إساقي أدون في صلاة مخلة كناي مركا خوف كل الله وحلي حمدني عبدي مركا صلاة دو تاغنت وقع مهاجي سساريهين إلهي هرتي ساعة تاغنت وحقوق قيمة بدن أو عملها بعد التوحيد وعاد سمين إله هاد لحظة يسامر كاس حالي لهذا لبا حالة oo uu ku jira ugu khayr badan xaaladna waxa way markuu ilaahay uu kula hadlayo waa quraanka marka akhrinaysid ilaahna waa ku jira maalin kasta akhriska quraanka iyo xaaladna waxa marka adiga ilaahay aad la hadlayso adaa doonanayo oo la hadlayo midna waa waajib waa salaadaha shanta waqti waa salaadaha sunnada ah marka ilaahay waqti kasta la hadli kartaa malahan culimada qaarkood waxay dukan jireen boqolaal ragcadood oo sunna ah xitaa waxa la soo wariyay oo halkan haweenka ugu bishaareeyeen ku dhaqankeeda haween waxaa jirtay maaragtay saalihaadka kamid ahaa oo maalintii 1000 ragcadood dukan jirtay waa la yaabaysa waa 1000 ragcadood waa subxaanahu wa ta'aala u qabto inay hor taagnaato adi qofka jahay inaad la joogto maanta dhan waa jeceshahay haddaad ilaahay jeceshahay waxaad jeceshahay ilaahay inaad la joogto raabica ayaa la dhihi jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala jecelay u qabto way banaan tahay markasta salaadaha laba afar inta rabta u dukan kartaa ilaa marka laga reebo xaalado oo salaada in la tukado karaahata سيدنا علي وحلا سوريي ما ننتي الله بقول أو ركعات أو سنة إنه تكن جري سيدنا علي أو كم أو أها زوجك قبل رسولك على فاطمة بنت رسول الله عالم عابد صالح مركا الصلاة يا ربي مقعد كم انتهي أم الكتاب وهاي كتابك waxaa magacyada suuradda qur'aan weyna ilaa culimada ay dhahan wixii qur'aanka laga helayo dhan suuradan ayaa laga helayaa qur'aanka saddex qayb uu qaybsan yahay saddexda qaybood suuradda waa laga helayaa waxaa kamid ah magacyada suuradan ashifaa wa dawo waxaa jirta qiso ah maaragtay asxaab nabiga calayhi salaatu wasalaam safar gashay oo ay ku hakadeen meesha waxay weydiistaan in la martisooro way diideen iyagoo banaanka ninkii meesha xukumaya bahal qaniinay ama mas ayaa qaniinay suntii iyo xanuunkii dhakhtar kastoo iyaga ay lahaayeen uu kari waayay ugu dambeyntii waxaa dhacday in oo ay u yeereen dadkii martida oo banaanka deganaa markaasi saxaabi hogaaminaya wuxuu yiri waxaan ku tufayaa أما waxaan ku tufaynaa suuratul faatixa insha Allah wana faatixa ashifaa wa dawo illa culimada qaarkood ay dhahaan ahad min marka tirooyinka waa la isku khilaafay oo halaha tira go'an lama oo markaasi culimada maaragtay isku raaceen isku khilaafay xagga sababtoo ah saxaabigaasi intuu akhriyay lama uu akhriyay laakiin waxaa la hubaa inuu faatixa akhriyay culimada qaarkeed waxay dhaheen badan in la akhriyo qaar waxay dhaheen 7 jeer qofka lagu dul akhriyo qaar ilaa 41 jeer ayaa la gaarsiiyay waxaa jirta inta kamid ah oo qofka 41 jeer ku tufi markuu dhameeyana qofka ka jiray waa suurad cajiib badan suuratul faatiha iyada intaas aan ka soo qaadanayaa dumar ah suuradan asla ugu bixiyeen lianaha shartun min shuruuti salah shuruudaha salaada shart kamid ah waa salaad rasuulku yiri man lam yaqra فاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ
تحت الكتاب وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قفك سورة الفاتحة وح صلاتي سكجر ملها صوابته سورة الفاتحة وشرط شروط الصلاة سيدا الشرط أتهاي أوكالي هدي تكتان وحا صلاة ضحوة كما جرت marka sidoo kale waa salaada haddii aad tukato weyse la'aan salaadaada waxba kama jirto haddana sidoo kale waa salaada markaad tukato faatixa la'aan salaadaada waxba kama jirto marka waxyaalaha waxaa ka mid ah magacyadeeda waxaa ka mid ah arruqya waa suurad la isku tufo haddaa akhrisato aad gacantaada ku tufto korkaaga aad mariso wixii xanuun ilaahay ku hadiinaya laakiin inaad rumaysnaato waa in sida dawada markaa qaadanayso madax xanuun qaadato tahay intaan markaasi madax xanuunku kaa baabi'inayo markaa qaadato idin waa rumaysay wuu kaa baaba'aya waa qiso cajiib badan marka hadda ilaahay wuxuu kaa rabaa inaad rumayso sheekh cabdulxamiid kashki wuxuu yiri dawada qur'aanka 3 shuruud ayaa shardi u ah dawo tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ma huwa ilaa shifaa marka qur'aanku ka hadlaya qur'aankan waa shifaa waa dawo laba wuxuu leeyahay dawada waa lagu celceliyaa waa aragtay dhakhaatiirta markay dawada ku qoraan waxay ku dhahayaan waa ku celcelin waa marka meeshii oo xanuun saddex wuxuu dhahay waxay u baahan tahay sabar qofka mu'minka haddii saddexaas laga helo waxaa lama huraan waxay in uu rumaysto ilaahi inuu yahay ama dhakhtar uu sameeyey ama kambani uu sameeyey okay waxaa kaloo rabaa inuu ku celceliyo iyo midda saddexaadna intii dawada maaragtay gaaraysa inay dawo u noqoto intaas kadib intaas waa magacyada suuradda oo dulmar ah intaas ka badan leedahay 7 mathaniya ka mid ah maaragtay magacyada suuraddu waxa waaye oo soo noqnoqota akhrinteeda waxay ku soo noqnoqota dadka tukada ahlu salaada ah maalintii suuradda marka afar doorka afar jeer akhrin sideed haddana afar jeer oo cishaad toban markaad 3 jeer ku darto waa 15 jeer markaas waxaa ku hartay 2 oo ah salaada subaxa 3 oo maqrib inta waa 10 jeer 10 jeer ayaa akhrinaysaa marka halkan waxaa laga fahmayaa suurad aad soo celcelinaysid akhrinta marka ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan asraar badan ayaa ku qartay faham badan ay u baahan tahay ilaahna waafajiyo insha allah marka suuraddan aan bilaabayo suuradaha marka hore markaan akhrinayo tafsiirkooda waxaan sameynayaa hadduu ilaah yidhaahdo marka hore macnaha suuradda oo kooban ayaan dul marayaa markaasi aayadaan u dul istaagayaa marka suuratulfaatixa waa soo sheegay magaceeda waa suuratulfaatixa iyo magacyada faraha badnaa ee suuradda ay leedahay بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي كما قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علماء waxay isku wada raaceen in aysan ahayn qayb ka mid ah suuradda laakiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمر إلهي ayaa jira وإذا قرأت القرآن فاستعذ aayadaasi amarkaasi culimadu waxay dhahaan waa amar oo ah sunna ah nabiga salaam wuxuu caadaystay markuu quraanka uu akhrinayo inuu ku bilowdo a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim shirka waa sheegana marka rudul maran u sheegana hadana faahfaahin u sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim iyada
qayb ka mid ah suuradda waaye marka kitaabka fiiriso 7 aayadood waaye suuradda ay ka kooban tahay laakiin kormaa loo akrinaya mise hoosaa loo akrinaya abu xaniifa tusaale ahaan wuxuu qabaa in hoos loo akriyo markuu qur-aanka akrin jiray isaga iyo xanafiyada waxay ku bilowdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laakiin waxaa loo badan yahay in kor loo qaado bisinka laakiin laskuma khilaafsan inay tahay qayb ka mid ah suuratulfaatixa laakiin kormaa loo qaadaya salaada marka bismillahi raxmaan raxiim salaadaha sida cishaha oo kale iyo oo codka kor loo qaado mise waa la qarinaya culamo qaarku waxay dhaheen may hoos ayaa loo bismillahi raxmaan raxiim saasaad leedahay waxaad ku bilaabaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaarna waxay dhaheen maya waxay qabaan in kor loo qaadayo codka bismillahi raxmaan raxiim marka aan akhriyo macnaha guud ahaan aan dulmaro kadibna tafaasiisha aan usoo laabto bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabanayaa acuudu min ashaytaan arajiim acuudu waxa waye waxaan magan gelaya billaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala allihii weynaa allah magacaasi waxaa la yidhaha magaca ilaahi subxaanahu wa tacaala oo magac kasta oo jira kuuminayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay halkan marka uu hoosgalo acuudu waxaa micneed waxaan hoosgalayaa waxaan magan gelayaa billaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala min ashaytaani shaytaan xaggiisa shaytaankaasi alrajiimi ee la fogeeyey ee almubcad naxariista ilaahi subxaanahu wa tacaala laga fogeeyey oo noqonaya waagii oo doodii maaragtay ana khayrun minhu uu dhahayay isla weynidii uu muujiyey ana ka khayr badan aadam maaragtay sidee aadam u hoos imaanaya waa caqliga isla weynida ah ka raacay waa ibliisa laga qaato marka waagaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala eriyey erintii lasoo eriyey waxaa laga fogeeyey naxariista ilaahi subxaanahu wa tacaala marka shaydaankaasi naxariista ilaahi laga fogeeyey ayaan ilaahay aan ka magan galaya wax weyn awood weyn ayaad hoos gashay oo awood weyn bismillaahi magaca ilaahi subxaanahu waxay dhahaan xarafkaas bismillaahi dadka luqadda naxwaha ama cilmiga naxwaha yaqaan jir ayaa la yiraahdaa tafaasiil oo macaanida rabnaa inaan laakiin ficil ayaa ka horeeyo ay culimada dhaheen abda'u ayaa leedahay bismillaahi magaca ilaahi subxaanahu wa tacaala arraxmaan allaha naxariistiisa ay balaaran tahay waa naxariista ilaahay uu ku fidiyey adduunka oo makhluuqaadka oo dhan uu gaarayo gaal iyo muslim xayawaan jamaadaad cid kasto ilaaha alleh magac magacyada suuraddan magacyada ilaahay lagu xusay oo ku dhow ilaahay subxaanahu wa tacaala oo 99 ah riwaayadaha qaarkooda inkastoo culimmada qaarkoodna ay ka badiyaan laakiin halkan waxaa lagu sheegay bismillaah ilaahay magaciisa ku jira arraxmaan waa magaca ilaahay arraxiim waa magaca ilaahay magac kastoo subxaanahu wa tacaala waxaa yimaada sifa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo insaanka ama makhluuqa uu ka faa'iidaysanayo allah ilaahay subxaanahu wa tacaala bismillaah magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku bilowday arraxmaan allaha naxariistiisa ee ballaarneed oo gaal iyo muslim gaaraysa arraxiim waxa waaye ay ku noqotay inta oo keliya maalinta qiyaamaha marka la yimaado waa hal tafsiir kalaa jira oo ah arraxiim allaha naxariistiisa ee gaar ku noqotay dad adduun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ayuu kugu naxariisan karaa nicmooyinka ilaahay uu bixinayo waa qayb ka mid ah naxariistiisa مثلا إلهي أدو إندو كسيي والنحريس مركا
qaybtaas indhaha looguma naxariisan tusaale ahaan marka naxariista dadka nicmooyinka gooniga la siiyey alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaa halkaana mahadda waxaa loola jeedaa culammada qaarkood marka qaarkood way kala tafsiiliyaan markaan waqti u helno laakiin alxamdu mahad oo dhan noocii doonta ha ahaato ilaahay u sugnaatay loola jeedaa mahad oo dhan waxaa loola jeedaa tafaasiisheeda waan ku noqonaynaa markii alxamdulilah waxaad ogaataa mahad marka say u wada dhan yihiin dhammaantooda lilahi ilahay u sugnaasoo rabbi alcaalamiin caalamka alcaalam maa siwa allah ilahay wixii ka soo haray marka adduunka waa laba qaybood iyo makhluuq marka waad ka wada hadli doonaa makhluuqa oo anaga ah marka wixii ilaahay ka kiisa isaga uu abuuray ayaa waxaa la yidhahdaa alcaalam marka rabbi waa abuura anaha tafaasiirta ama macaanida abuuray tarbiyeyey waa arki doonaa faahfaahinta marka rabbi alcaalamiin waxaa loola jeedaa alcaalamiin caalamka oo dhan makhluuqaadka jira oo dhan alihii abuuray alahaasaan ku mahad celinaynaa sababtaa isagaana abuuray isagaana jiraysiiyey hal ata cala alinsaani xiinu min adahri lam yakun shayan